guddoonsiyey loogu soo guddoonsiyey warowka keena ma arkayso inay mafreeyeen subal arkan banooni miya buufi miya ilma adan si socod buufi kama ay keen kalila sama iska soo jeesanana okay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارات وحني لي هاي جنرال كان داوني والسلام عليكم أوفيشال لولا بروان كلا مشغولي أسكبتي هول الدنيا لبرسناي الحمد لله وحني لي صود وهذا قاعد مفرم خصوصيات ذيك ولا عافمت كنا كنا عافمت قبل ما شاء الله يعني يوحى عوضة سيجي قالي مرنا حاجيجا هاي وحني لي أصلا يقول جناية wixii war oo noo haray cawad asaga waay soo dhawaad gacmo furneed fur walaalay qaaliyaal soo dhawaad he السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله ضمان واندين سلامي سلام كبعد جدي فانسكي سلمان وحان إذن الله هاي مرلبات سو دوادا ما شاء الله حاجيدي دواساي إذن كو شاكتي مركو وهو صورت وحان نقعد سبسكرايب لايك كومنت شير waxba naga xasdina dhankiina waa idaysan wax lacag kuma fadhiyo barta guduudana iska taabanaysaa dambaleelka iska furinaysaa wixii cusub ay soo gelinaysaa sida una qofku ugu horeeya daawashada oo daawado Allahu musta'an like iyo subscribe kan wuxuu naga saacideynayaa iyo commenting wax badan hadda adinkana sidaan wax ku heleenahay adinkana caawin kartiin ma sha Allah idinka waxa idin ku nahay marka akhyaaray barnaamijkeena gudagaleena xajiid waatana iyo ranort الحمد لله ما شاء الله وحن وحن لو سلا ما بقرنا إيه أصحابته محقوها ساعة محلاتها أنا ما شاء الله وفي عناي لما هو قولة ده هاي أصحابته هرتا 2 week عمل واحد مصورين ولا مشكلة مشكور كاسكبنا مركع عاوة إنك استودتك أنا قصود البدين challenge marka challenge-gii caaw sawaadigiisi Allah ay iska dhaafadin lawada oo ku guuleysay sawaadigiisa la adinka arkaysi caawad ma khaleesan ma sha Allah ilaahay wax khayr qaba ka dhigo si zabaadi ali siino ya caawa macna dad badan way weydiiyeen zabaadi maxaa laga wadaa zabaadi waxaa laga wadaa hadiyad oo qofka lagu doonsiinayo laga wadaa zabaadi macna zabaadi waxa waa hadiyad marka hadiyadii هدي هذا ما وشيءنا ما هذا ولا شيء ما كهوش بسمه ما لو شيء مسوي أركايا وأركايا عندك أركايا واحد أو ضد أنتي زي وسيلة سامو ها أنت هذا معلقة وكينا وأركايا سواء عاوح وقال إيه ويجنا أصلا ديارنا ما أدري لا وخير خو كذي أصلا ديارنا ويجنا ما شاء الله ما هو هرتا أنت عود وحاروينا موسيقى أو فرحيو سواء جاس أديك هو الأكيد أنت عود إني لا وح كفيرية وحقير قوة ورم أودين عود أي هرتا أنت الزواج دي هذا برنامج كهاي ما قد قلنا ما هي برنامج كذا ما يسألفوا وقدم بيا كاس معنا زواج ميشو وما ميشو جدار دنبوي أيوة ما قولوا سنا غيرته زواج ميشو إن شاء الله بإذن الله الكريم وحاجته ويلا أنا أصحابنا هاي ودada isku fiicanahay askunahay wiilkaasa marka ariman oo la soo wadaagay ani iyo xajiyadeedi wuxuu dhahay qisa xubsatay marka qisadaas rabaa in dadka la wadaago muhiimna ma ahan qofka meeshuu hadda ku sugan yahay iyo waxaas in la sheego iyo sawirkiisa in la soo dhigo laakiin waxa muhiim ah in qisada aan sheegno marka qisadana waa qisa aad معان يومرجع isku jirto way iswadataa marka qisadena gudgalena marka waxa waaye wiilka waxa la dhahaa maxamed muxudiin Allah waa wiil saaxiibkayga ilaa iyo oo iskuul asla soo qaadanay qarni asla soo dhamaysanay inna isku fiicanna waaye hadda meel uu ku sugan yahay muhiim ma ahan laakiin waagi ani asin iska dambeysay waa bari ayaa isla joognay yaqaana degmada waa bari ما شاء الله وحاوي ويلكو وحو يدهي anigoo socdaal leh oo iska taqaan dhalinyarta hadda wadanka joogta tahriib iyo hoola kale iyo barnaamij kale galeen sax waa marka wuxuu yidhi anigoo tahriib oo socdaal ku jiro oo Turkiya marayo
ayaa waxaa is aragnay gabar Soomaaliyeed ما شاء الله gabadhana magaceedi laazimaan inaan sheegno waa ka gudbeynaa kolay idaa isdareemi karta qofku yahay أستقبل كل شيء أنا wiilka la sheegayna haa muhiim maahan wuxuu dhahay anigoo Turkiga joogo oo Ankara joogo gabadhan is aragnay waxaanu ku talagalnay oo dhahay meeshii inaa safarkeena hore ugu sii wadano isku lagu darsano isku helino alxaasil maadaama wiilkii oo gabadhii isfahmeen inay isla safraan wada socod dheeraad kadib dhinacii Greega la maray markii Greega la tagay oo lis dhiibay sheekadii waxay isku bedeshay inay isfahmaan labadoodii isfahmaan isfahmaan macnaha barasho markiiba Ankara isku barteen isfahmaan macnaha wada sheekaysteen macnaha markaas agtoodii labadoodii isku soo dhawaadeen soo dhawaasho alxaasil wiilkii gabadhii meeshii ayay isku fahmeen wiilkii ogoo nin iska xaaladiisa ilaahay iska buu ahaa familigiisa wax saas aysan haysanin qofkana wuxuu usoo baxayba dhibaatay ahayd wiilkii asigiyo dhaqaalihii xaggii ka xumaaday maadaama gabadha aabaheed iyo walaalaheedii ay maqnaayeen oo laba baahina meesha way jirtay gabadhiina wuu u baahnaa qarashkiina wuu ka go-ay inuu ka harna ma rabo waxna ma hayo maya inuuba iyada wixii oo dhib oo dhan uu la wadaago alxaasil wiilkii maxamed maxamuud ahaa gabadhii ayay meeshii isku fahmeen markay isfahmeen kadib ayaa meeshii qisa jaceyl ka dhex martay labadooda qisa jaceyl meeshii ka bilaabatay wiilkii oo saaxiibkeygii ahaa qisadii jaceylka kadib markii Greega la gaaray meel isku dhiibaa qaarna way isdhiibaan qaarna way gudbaan nin walba suu markaas isku habeen karo waaye marka wiilkii saaxiibkii ahaa iyo gabadhii dadaa meesha ugu horeeyay Greega asigana عندما هيسنين أو قرب أو قبل داس هن جودي أديك family جيدا ماشى قارك ميدا جوجين family جي أو ماضي أو وطي أسيقنا حردي أنا عاوز ساعة نيجيسون وياه أسيقنا حردي خلوتي ويسكديبي ما شاء الله بس حردي خلوتي ومركو ويسكديبي قبل تركي ده حاجة family جيدي وحس ما يمرك إني أو سدي وقتي دي أول وكل الإسكو هي الجرو الإسكو أركجري صح أنا واحد ماذي عريري ير صح إلى Soomaalida markii dan la wada leeyahay la isdaba soconaay wiilkii saaxiibkayga ahaa xiradii qaxootigu iskaaga dhibaataysnaa gabadhiina familigeedii meesha ugu imaaday gabadhii sidii safaradeeda iskugu soo adaadiyay laba beri kadib ay gabadhii soo wacday waxay dhahdeen inuu aniga safara ahay waana socdaa inaan kaa tagana ma rabo wax gacanta aan ku hayna ma leh adigina waa ku rabaa wixiina wax la iga shubaay waaye oo familigii iga shubayaan aabii walaala iga shubayaan wax gacanteeda hadda ku jira malahan haddii oo anigii ay igu soo dhici lahayn wax bay ahaan lahayd waa wada socon lahayn maadaama inta dad ay joogaan dadkii wixii barnaamijyadii iyaga dhameeyeen anigana socdaal unbaa ah marka maxaa sameynaa oo kula gudboon wiilkii marka wuxuu dhe ma ahan inaa aniga arinteeda dushi iska saartid wixii ii qoran ma gafaayay marka hadduu ilaahay raali ka noqdo haddaaba adiga baxdid insha allah bismillahi alkariim waan ismaqli doonaa ma uusan ka waalnin gabadhii iyada ahayd iyadoo xoogoo ku jira xanuun yar xaggiisa ee dareemayso inay baxdo awoodna ma hayso isleedahay ninkii intaas isla soo qariibteen ma meel cidlo ugu tagtaa see yeeshaa alxaasil wiilkii asiga ahaa gabadhii way tagtay wadankee aadamihiimaana inaa sheegno wiilkii gabadhii way ka tagtay muddo kadib adiga bilooyin kadib 3 bilood 4 bilood qiyaastii gabadhii soo wactantay asigoo meel uu kala xiriiray iyo meel uu ka wacay gabadha intee aadtay marka asigana meeshii ku haray Greegii
بس gabadhii ay waqti tagta gariga iyadoo ay kasii tagtay dadkeeda wadanaya ma sha Allah kaasahay marka gabadhii 3 bilood qiyaastii 3 bilood camal 4 bilood camal maray dhan tahay wiilkii meel uu kala hadlay iyo meel uu kala xiriiro uusan oo ka sii waayay صح familka gabadhu u imaadeen uusan aqoon u lahayn صح markay gariga ay soo galayeen alxaasil nasiibka asiga ku soo raasanayay gabadhii iyadii wiilkii soo raadisay صح asigoo gariga iskaaga rafaa soo yaaban buu isdahay soo yaaban ka wacda intee ka heshay asoo umar ku taaganta ma sha Allah taagan tahay maalintiina uu xamaaligiisa iska aado habeenkiina uu xiridiisa iska soo galo oo qabqabadiisa iskaaga shaqeysto ilaa familna uu ka soo tagay familka ka dambeeyay صح alxaasil gabadhii yaa soo wactantay gabadhii yaa tiri aniga waa nabad tagay saas ula soco waxaana kula soo hadli waayay maadaama aniga familkii aan dhex tagay muddo aan kala maqneen xiise iyo waxaasaa jiray iyo wadankii aan ku cusbaa meel wax laga qabtay aan ka seenin maasha Allah hadda waa nabad tagay waana caafimaad qabaa adiga bal xaaladaadii iga sheekay wiilkii wuxuu dhahay wallahi aniga alxamdulillah meesha igu ogeed baa joogaa wax dhibana ma jiro maalintiina meelahayga iska dhaca qaydayga iskaaga shaqaystaa habeenkiina meesha igu ogeed xiradii ku jira oo dhibaato iyo dil iyo foodo iyadana ka jirto marka wuxuu dhahay bal ii waran xaaladaadii iyo meesha tagtay markaas dhahay alxamdulillah horta kan waa lambarkeygii hore tiray insha Allah milal krim waxaan isku dayaa sida uu dhaqsiyaa badan inaa kugu soo caabiyo saa u soo bixi lahayd markaas uu dhahay wiilkii waad mahadsan tahay waana kaa filanayay inaad saas ii samaynaysid bal insha Allah milal krim waan iska warhaynaynaa muddo kadib ayaa gabadhii wiilkii qarash u soo dirtay qarashuu ku baxo qarashkii uu ku baxa markay usoo dirtay meeshii iyada joogtay ma ahane meel kale wiilkii hamigiisii ahaa hami kaloo lahaa wiilkii saaxiibkayga ahaa safiican oo la socda khiyaarta dhigaha furayseegayga sidoo ka sheekeynaya qiso cajiib oo la hubo ma fahantin aywa dhammaystiro wiilkii meeshuu asiga rabay ma ahane meesha iyada rabtay ma ahane meel kale uu hami dheeraa warcad mana uusan khiyaanin markii horena way ogeed laakiin iyada waxay rabtay inay hal meel wada joogaan ku wada noolaadaan marka wiilkii wuxuu dhahay walaalay aniga markii wadada soo marayeen uu sheegay aniga hankayga waa halkaas ogow adigana ilaan waa wada sheekaysanaa dadkii moogta adigana hankaaga intee waay alxaasil wiilkii meeshii hankiisi ahaa markay gabadhii oo dhahday qarashkii waa kaa ilaahay kuma darnaaday inaan soo qaadisaa lagaa raaso ama baxdo markaasuu cunigii alaabtiisii iyo wixiisii isku aadistay iyo wuxuu dhahay walaalay horta waad mahadsan tahay maadaama aniga waxaan ii soo dirtay safarkaygana ii fududeysay walaal jiraa tahay aniga adigana dad oo isku dheeraanahay ilaahay kuma darnaadee وانا أكتها حالة دي أنا جماشة أنا أبهنا صح أديك ماشة أبهنا لا بيكلت هاي صح مدام أساس تاي أنت أساس قوي ما في أنا جو حاسمنا ولا ماشة أنا كذا هذا بنهي يا سوق سنة إلى صح وأنا قوي معنا صح مهمة واحد تاي ماشة قف كيلان هنكي سوين وكاميرا دليا صح لكنه جعلك فينا في نسونا asiga maba diidnaba inay jaceylkii uu dhamaaday maba waa ani aad meesha ma u kala wad maba dhihinba jaceylkii wili ixtiraamkiisa laakiin hamigi meesha kula inuu iska dhaafa ilaha booneed ma fahanti oo iyada fiiriyo ma fahanti horta arrintaas yeeti dadka oo waxaa u dhiibanaynaay oo asxaabteeni ah friendskeeni ah oo nagu xiran laakiin waxaa kala saartaa jaceylka labada qofood ka dhexeeyo iyo qofkan hanka uu ka leeyahay mustaqbalkiisa labay kala tahay tani waa jecel waa mid nolosha qaabilsan midna waa mid adiga aa weligaa ku fikiraysa inaad gaarto oo hankaaga wiilka saaxiibkayga meeshuu asiga hankiisi ahaa uu aaday gabadhii markuu u sheegay waxay dhahdee okay dhib ma lahan aniga bawaalkaa inaa soo raacniya kaasoo tegay maadaama aniga kaasoo tegay haddana balantii aa hore kaaga qaado waa kaaga soo baxay bal
adigana balantaada ka soo bax ama iimaw ama meeshaad aad adiga ka warsugaa alxaasib wiilkii meeshuu asiga rabi uu iska dhiibay markuu meeshii iska dhiibay ayaa arrintii ku adkaatay muddo kadib sharciyadii iyo wixii yaa loo diiday marka allahu mustacaan qofku wuxuu asiga dhahay iiga sheeg asxaabtaada iigu sheeg dadka talaha ana ha isiyaan inaan anaga seerkaa ugu sheegno waaye wiilkii sharcigii iyo wixii ayaa iskeeni waaye ha xaaladii wax walba qoraal waaye wax walba qoraal xaaladii ku adkaatay ilaahay kuma darnaadee cunugii wuxuu sameeyna male wadankiina ma joogo gabadhiina lama joogo meel cidlo taagan yahay marka wiilkii sharcigiina ma uusan helin wadankiina ma uu joogo qoftii asiga oo qarash gareysay oo isla soo taariibeen oo dhibaatada isla soo bareen qarashka ka bixisana lama joogo meel cidlo taagan yahay marka qisada way dheer tahay insha Allah bismillahir karim qaybteeda dambe waxaa barnaamijka xigo insha Allah bismillahir karim asxaabta maxaa leedahay waxaan leeyahay kun jeer gacmo furan kusoo dhawaada cawada xaajigay waxaan guddoonsiinaa sawaadhi dad badan ay soo dhiheen labo sheegay ha qiyaamine sawaadhigii soo guddoonsiin ma fahanteen cawo sawaadhigii nihina ku arkaysin lacag badan qarash badan ee gal ma fahanteen marka cawada arkaysin insha Allah sawaadhiga markii la siinaya sida darar ama indhaha ma la iska xiraa may mise adno indhaha furo indha ka xiraa laakiin waa ku dhaafaa فانتي وجهي سفر وعوض فلا يقلي لما فانت حواي عندها أي حلو دعوة يقعد عدس وايد لكن عندها إذا تحب السوادي جنسيلة أصو صعب كسير أنفا عندها لا لكن ما الحين أقول دافع هذا عندي سفر هذا كل كذا ما أوكي واي أنا خيارتي أنا قبل بدون سي زوادي أربع جنيه زوادي كان أفتح زوادي كان إن شاء الله. A few moments later. يو زبادي اللي سوى ذاي نحن غدونا بل واركي أنا واحد سوى. A few moments later. يمكن يديني يا إذا ما عني يا خياري واركي دونا كرتاك قالوا سألني ما حركسي دلقي على سوادي لو سو قدونسي وروك كينا ما أركز الاثنين بفريهي شوف بل كان بنوني مية بوفي مية إلما أدن سي بسوعد بوفي كما إيكن رخياري وأركو سين وحال السي بوفي ما زوادي أنا وحال سلاي أوطال وقين دونا وحال كفر عذا وقين دونا بوفي اللي واي وكذا إذا مركز سوقينا أدو إلى رالك نغضو وحال كاغتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبسكرايب لايك شير كومنتي كان نجيه المامين أخيرتين لا تنسوا عنق لو جيل عمل بوفنا عليك يعني أي مع السلامة